garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho gaar ahaan garoonka ciidamada cirka afisyooni waxaa soo cagadhigatay diyaarad siday cutubyo ka tirsan ciidanka gorgor oo tababar ku soo qaatay dalka turkiga. Ciidankan ayaa ka mid noqon doona ciidamada qalabka sida howlgalka ka wada gudaha dalka Soomaaliya iyo sidoo kale magaalada tan Muqdisho. Mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo horkacayay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga, saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga iyo kuwa dalka Turkiga ayaa garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyay ciidankan. ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay taliyaha ciidanka lugta Maxamed Tahliil Biixi isagoo ka warramay ciidankan maanta soo gaaray magaalada Muqdisho. dowladda Turkiga oo walaalaha ha noolaato. waxa adinkuna aad baad u faraxsan tihiin, annaguna waa faraxsanahay. adinku waxaad ku faraxsan tihiin waddankiinii baad ku soo laabateen adinkoo wax u soo bartay. waddankiinii baad ku soo laabateen adinkoo caafimaad qaba. waddankiinii iyo dadkiinii baad u soo laabateen adinkoo u hiloobay. annaguna waxaan ku faraxsannahay ciidankii aan dirsannay oo wax noo soo bartay oo tababar qaba in ilaahay nabad noogu soo celiyey. labadaa farxadood oo kulmay gul Soomaaliya gul. waxaa jooga wasiirkii gaashaandhigga, ma raba inaan ku dheeraado. dowladda Turkiga oo tababarkaan idin soo siisay waxaan maanta u awoodnaa waxaa weeye inaan wadnaha iyaga iyo qalbigayaga ka jeclaannoo siinno. taasaan u awoodnaa waana siinaynaa. insha allahu xilligay gaadhana waa u abaalgudaynaa haddii ilaahay yidhaahdo. Soomaaliya ha noolaato. waxaan salaan idinkaga wadaa anoo ah taliyii ciidanka dhulka, taliyaha xoogga iyo ku-xigeenka taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed oo idin soo salaamahayay. hawshaan aniga ii soo wakiishay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaji oo dhankiisa halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in ciidankan biri wixii ka dambeeyay ay bilaabi doonaan howlgalladooda. waxaan aaminsanahay tababarka la idin soo siiyay inuu yahay tababar aad iyo aad u wanaagsan, in idinkana aad tababari doontaan ciidamo fara badan oo dalka joogo. tababarkaas iyo diyaargarowgaasna dhali doono in dalkeena amnigiisa, difaacigiisa iyo ilaalinta xorriyadda dalkeena iyo midnimadiisa inaad sugi doontaan. waa la aaminsan yahay dadka dhallinyaradan gorgor oo ku soo tababartay inay ka duwan yihiin ciidamada kale tababarkay soo heleen iyo fursada ay heleen daraaddooda. waxaan rabnaa insha allahu inaad dadaashaan, qarankiina aad u taaganaataan. annagana dawlad ahaan waxaan diyaar u nahay inaan mar walbaba ciidanka garab istaagno, ciidanka dhisno. dawladoo ciidan lahayn dalkeeda difaacan karin way adag tahay sidii ay ku noolaato. aasaaskii dawladnimo waa ciidankeena dhismadiis waa bilowday, waa socdaa, dib u habayntiisa waa socotaa. xuquuqda ciidamada in la helo waan ku dadaalahaynaa. insha allahu waa guulaysanaynaa. ilaahay baan ku tiirsanaynaa, ciidankeenaan ku tiirsanaynaa. ka tirsan ciidanka gorgor ee tababarka ku soo qaatay dalka Turkiga ayaa maanta soo gaaray magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya. waxaan halkan ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin oo horkacayo wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Maxamed Cabdinaasir ayaan leh Universal TV Muqdisho.